wafdi lixaad leh oo uu hogaaminaya madaxweynaha dalka Kenya mudane Uhuru Kenyatta ayaa booqasho ku tagay magaalada Wajeer waxaana madaxweynaha booqashadaasi ku wehelinayay madaxa aqlabiyadda baarlamaanka dalka ahna xildhibaanka laga soo doorto bartamaha magaalada Garissa mudane Aadan Barre Ducaale xigeenka madaxweynaha mudane William Ruto iyo madax kale oo badan waxayna magaalada Wajeer gabi ahaanba noqotay maalintaasi Jubilee madaxa aqlabiyadda baarlamaanka dalka ahna xildhibaanka laga soo doorto bartamaha magaalada Garissa ayaa ugu horeyntii xafladaasi ka hadlay markaan fariisano waxaad akhrin doontaan sugi sabina maqlay reer Wajeer 2013 meesha la sugo ilaa faataxa akhrisiin waxaad akhriseen ataxiyaat dowladda dhinac baan ka marnay hadda faataxadaan akhrinaynaa dowladda madaxweyne Uhuru Kenyatta annaga daanahay Soomaali meel aan joogno hatta ciidamadeenna waxay ku dhamaanayaan Soomaaliya sidii nabad looga dhigo hadaanahay Soomaali waanta shanay culamaa diinka annaga siyaasiga annaga maalqabeenta annaga waxaan ku tashanay inaan mid noqono oo aan midowno oo dowladda Uhuru Kenyatta aan wax la qaybsano madaxweyne ku xigeenka dalka mudane William Ruto ayaa yiri doorashadii hore shacabka reer Wajeer waxaanu kala marnay laba wado laakiin haatan diyaar ma u tihiin inaanu hal wado wada marno taasoo shacabkii ay ka ogolaadeen Tumekuja ili tukubaliane tutembee safari hii na watu wa Wajia tuunde serikali ya 2017. Yenye mko tayari jameni kuungana na sisi tujenge serikali ya 2017? Tunajua Mheshimiwa Rais hapa anajua 2013 nyinyi na sisi tulienda njia tofauti, ni kweli si kweli? Lakini safari hii tunasema tutaungana watu wa Wajia na tunashukuru viongozi wenu kwa sababu wameamua ya kwamba safari hii tutatembea pamoja. madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa reer Wajeer u sheegay inuu u wado mashaariic badan oo ay ka mid tahay 9 bilyan oo loogu talagalay in wax looga qabto xagga arrimaha biyaha. Haja yetu sisi ni kuhakikisha ya kwamba tunaingia kwa serikali tulete umoja wa Wakenya na ndio tuweze kuleta maendeleo. Wenzetu, nafikiri mmejionea yale ambaye serikali ya Jubilee imefanya kwa muda mfupi hata hapa kwenu Wajir. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba mipango ambayo tuko naye haswa ya maji ni mipango ambayo tunataka kutekeleza ambayo tunajua itabadilisha maisha ya wananchi wa hapa Wajir. Hivi karibuni na tayari tumetoa tenda, tunataka kuweka water supply ya town hii ya Wajir na serikali yenu itatumia bilioni 9 billion shillings. Daawadayaal waxaan intaas ku soo gabagabaynaynaa warbixintii aynu idinkaga diyaarinay booqashadii madaxweynaha iyo wafdigiisii lixaad ka lahaa ay ku gaareen magaalada Wajeer.